magaalada Lillestrøm ee dalka Norway ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dilaacday dhac tuugo iyo burcadnimo aad u baaxad weyn kuwa oo lala beegsanayo ama lagu dhacayo guryaha iyo sidoo kale goobaha ganacsiga ku yaala magaaladaasi. Booliiska ayaa soo saaray warbixin ay ku farayaan dadweynaha ku nool magaaladaasi in ay muujiyaan feejignaan iyo taxadir dheeri ah, sidoo kalena ay booliiska ku soo wargeliyaan haddii ay arkaan cid ay ka shakiyaan. Arrintan ayaa timid kadib markii magaaladaasi dhac xooggan lagu geystay laba ka mid ah guryaha ku yaala magaaladaasi, kuwa oo inta la jabsaday maalin cad laga dhacay guryahaasi hanti kala duwan oo isugu jiray lacag, dahab iyo agab kale. Waxaana lagu soo waramayaa in uu sidoo kale jiray dhac baaxad leh oo loo geystay mid ka mid ah dukaamada dahabka lagu iibiyo ee ku yaala magaalada Lillestrøm, ka oo isna laga dhacay dahab aan baaxadiisa iyo sidoo kale qiimihiisa ilaa iyo hadda aan la qiyaasin. Booliiska ayaa waxaa markii ugu horreysay lagu soo wargeliyay laba ka mid ah guryaha ku yaala magaaladaasi, kuwaasoo albaabadooda la jabsaday dhac xoogganna loo geystay. Waxayna booliiska ku waramayaan in labada guri ee la dhacay ee tuugadu u gashay ay ahaayeen guryo ay ku noolaayeen dad waayeelo ah, halkaasoo dhac xooggan oo noocyo kala duwan ah loo geystay kadib markii albaabadooda la jabsaday. Booliiska ayaa labadan dhacda ee albaabada lagu jabsaday guryahan ay waayeelada ku nool yihiin lagana dhacay dahab iyo lacago iyo hanti kaleba ay muujinayaan kuwo isku xiran oo isla xiriira. Waxayna booliiska deegaanada bari ee dalka Norway ku waramayaan in labadani dhacdo ee loo geystay labadani guri muujinayaan in ay yihiin tuugo isku mid ah oo aysan jirin farqi u dhaxeeyo marka la eego habka wax loo dhacay iyo sida albaabada loo jabsaday. Waxayna booliiska soo saareen digniino aad u baaxad weyn, kuwaasoo ay dadweynaha ku farayaan in ay si degdeg ah ula soo xiriiraan haddii ay arkaan cid ay ka shakiyaan, maadaama ay ku sii badanayso magaalada Lillestrøm dhaca loo geysanaya guryaha iyo goobaha ganacsi ee ay burcadaani aan arxanka lahayn ay sameynayaan. Wuxuuna taliyaha howlgallada deegaanada bari ee booliiska Rune Hellerud ku waramayaa in labadan dhacdo iyo dhaca loo geystay dukaankaba ay muujinayaan kuwo isku xiran. Wuxuuna intaa ku darayaa in galabnimadii booliiska sidoo kale lagu soo wargeliyay goob saddexaad oo ku taala Romerike ee deegaankaasi, ka oo loo geystay isaguna dhac baaxad weyn. Maareeyaha howlgallada booliiska deegaanada bari ee dalka Norway Martin Ottesen ayaa isaguna ku waramayo in dhacan isdaba joogga ah iyo burcadaan ka dilaacday magaalada Lillestrøm iyo hareeraheeda ay muujinayaan in ay yihiin burcad habaysan oo isku xiran marka loo eego noocyada dhaca ay geysanayaan, guryaha ay dhacayaan iyo goobaha ganacsi ay dhacayaan. Wuxuuna booliisku sheegay in ay hadda baaritaano xooggan oo isdaba jooga ay wadaan sidii ay burcadaan caadaysatay in ay dhacaan guryaha iyo goobaha ganacsi iyo hantida shacabka Norwejiga ah ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen, cadaaladana u horkeeni lahaayeen. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.